السلام عليكم تشارلي maanta waxaan kaga sheekayn doonaa sheekada nin xeeladiisa kala caynka ah dunida ku bilgalay waa sheekadii Mr Charles Ponzi hadaba Charles inta sheekada u gudagelin ma maqashay orahada loo yaqaano baaro bashiir oo u gud bishaaro baaro waa tii lacag qaadista ah yani طبعا hore oo maad maqal way Soomaaliya u tarjumay yani taasoo ka micno ah lacag ka soo qaad bashiir deena lacagta bashiir ka soo qaaday si bishaaro oo sabab waxaan qof lacag uga soo qaaday qof kale oo siinaya haddaba mawduucana maanta in la wadaagayo ninka hadda soo xusay ku saabsanaan doona ayaa ingiriis ahaan ku caana ereygan loo yaqaano proper pay power peer lacag soo qaad oo power lacag si yani waa Soomaaliya taasoo Soomaali ku noqonaysa bashiir baaro bashiir oo u gud bishaaro haddaba su'aashan ku celino bashiir in lacagtiisa ka soo qaado bishaaro siiyo maxaa sababay seeso ku dhacaysa sheeka caynkan oo kalena maxay noqon kartaa haddaba jawaabteeda qurux badan sheekada xiisaha badan halka idin kula wadaago haddaba jaalayaal ee basariyihina abuuray oo khalqiga koonka dhammaan abuuray ayaa noo sheegay haddaan bini aadam nahay inaan maalka iyo hantida la jecelnahay oo tuxibuuna almaala xubban jamma xalqadeena hore waxaan ku soo qaadanay niman tuuga ah oo burcada oo hindi ah oo caalamka godadka badan ee internetka dad malaayiin dollar uga dhaxaysay haddaba Charles lacag dhicistu iyo burcada qaybaheeda kala duwan kuma koobna kaliya internetka iyo qaybihiisa kala duwan ee sidoo kalena burcadu weligeed way jirtay weliba internetka maanta aan adeegsano asagoo baaxad iyo awood uu maanta leeyahay san jirin ayuu jiray haddaba waa kuma Charles Ponzi anu laabano noloshiisii iyo carruurnimadiisii hore iyo meesha ka soo jeeday haddaba mudane Carlo Pietro Giovanni Guglielmo da Ponzi ayaa ku dhashay magaalada Lugo sanadii 1882 bishii March magaaladaas oo dhacda koonfurta dalka Talyaaniga haddaba Ponzi labadiisa waalid ee Oresta iyo Imelda Ponzi ayaa ahaa asal ahaan kuwa ka soo jeeda family hodan ah oo aad u ladan yani lacag badan leh qani ah laakiin nasiib xumo waqtiga iyo waayaha isgoray awgeed musalifay oo waqtiga ayuu ka daba keeneen dabayaaqadii markuu soo dhaweeyay markaas Charles dunida soo diiray yani markuu dunida imaaday reerkii oo baawnimo uu kula soo kordhay meel oran karaa qaabkay tahayba aslan dad family laha oo lacag laha oo magac iyo maamuus ku laha bulshada reer Talyaani iyo magaaladaas Lugo ayuu ka soo jeeday laakiin maalintuu dhalanayay dad waxay ahaayeen aan ka karin min haysan yaraantiisa Charles waxaa la xusaa inuu soo maray nolol aad u adag dad iska gar qof deeba taqaana waqtigii qarnigiisa 19 bilowgiisii xaaladda adag dalka noocaas kale ku soo korayay carruurnimo adag buu soo maray waxaa la xusaa inuu marar badan ku dhaqaaqi jiray ficillo tuugnimo ah dariskiisa waalidkiisa qaybo kala duwan intaba wuxuu xaadiray jaamacadda Sapienza University ee magaalada Rome ku taala halkaas oo 4 sano kadib isagoona lacagna haysan jaamacaddiina shahaado ka qaaday waxna haysan laga ciri meesha jaamacaddiina sida looga buriyay ma qiyaas marka qof dhalinyaro ah oo jaamacad guul ka gaarin noloshiina ku adag tahay hami badan ka guuxay iyo dhibka la kulmi karo bees kartana filaya haddaba Charles ayaa marar badan maqli jiray in uu jiro dal loo aado lacag badan iyo caanimo taasoo mataqaana dad badan oo ka haajiraya dalka Talyaaniga markaas ay aadayeen helayeen dabcan dalku waa Mareykanka haddaba wuxuu si noloshan adag oo ku jirtay saad uga baxay midaas kodan u taamayaan u gaartay malaha waxay ku wacnaan lahayd noloshu meesha joogtay ka haajirtay haddaba sida ku xusan buugga The Rise of Mr Ponzi oo isla asagu qalinka u qaatay ayuu wuxuu ku xusayaa inuu sanadii 1903 oo markabkii SS Vancouver uu ku tagay magaalada Boston ee cariga Mareykanka asagoo markaas adduun lacageed ka haysta lacag dhan 2.5 ama $2 Mareykanka markaasna uu yiri lacagtaas waxa iga soo hartay waxaan lacagba ka watay oo saad jicsan ka dhigana jid ku soo marayay oo $200 ahay dabcan intaas oo bil ayaa jidka lagu sii jiray dunida maanta horumartay diyaaradaha iyo maraakiibta degdeg iyo xawaaraha ku socdaan midna ma jirin Talyaaniga intuu ka baxay la Mareykanka u socday biluhu jid ku jiray wuxuu yaraa haysteena ka baaba'een sidaasna uu ku galay Mareykanka haddaba wuxuu xusayaa Charles Ponzi in Mareykanka markuu tagay kadib uu galay nolosha shaqo walba oo ka soo baxda taasoo markaas uu ku heli karo rootigiisii gaarsiin kartayna riyo kasta uu lahaa tuuladiisii Lugo marka uu joogay taasoo ah mid mar walba looga sheekeeyo ka guuxda rabitaan iyo hami ahaan caanimadii lacagta loo sheegay oo mar walba isdhahayay hadda ariga Mareykanka tigtid waa gaaraysaa dukaan iibiya khudaar gade harqaan leh jid xaaqe durbaan tume waardiye ilaa dugsan tugol yahay shaqaale muruq maal warshadeed ah iyo sidoo kale shaqaale
cunno kariya intaba shaqo walba oo nooc walba ka soo horbaxday wuxuu yidhi waan ka shaqayn jiray shaqo faanis ma leh midii ka soo horbaxdaba gacanta ayaan u qaaday shaqooyinkan ayaa boqolkiiba 90 uu asagoo muddo badan ka shaqayn laga soo caybinayay wax badan oo isku sii waarin dabcan waa qiyaasaysaa noloshu soo maray qof caynkaas oo kale ah intaas way adkay marar badan ayuu shaqooyin noocaas ku guuldaraystay ilaa markii dambe uu aaday dalka Canada uu xabsiyo badan meesha ka soo galay kabacdi markuu isku dayay waraaqada check lacageed bangiga ah oo uu forger ku sameeyay oo been abuur ka sameeyay saxiixiyo been adeegsaday uu xabsiyo ilaa 3 sano 6 sano 4 sano kala duwan gaaraya soo maray soo marka Mareykanka ka carray oo yiri Montreal Canada aad intaas nolol miican ka horeysa laakiin markii dambe nasiib xumo uu soo laabtay carrigu ka carray magaalooyin badan ayuu isku maray dalal badan ayuu isku maray waxaan 10 sano dheeraad ka yarayn ayuu nolosha darbi cusub maalin walba darbi hor leh madaxa ku soo dhufanayay haddaba markii dambe ku soo laabtay magaalada Boston sanadii 1919 ayuu wuxuu aasaasay shirkad yar oo badeecad dhoofisa soo dejisa la tacaamulaysa markaas Talyaaniga Spain iyo dalku markaas ka imaada dal u dhow isla sanadadaas ayaa waxaa badeecad soo gaartay oo shirkad Spanish ah oo codsanaysay in xaysiis loo sameeyo ama catalog xaysiis loo sameeyo ayuu wuxuu ka dhaxlay postal voucher yani oo ahayd waraaqadaha marka la dirayo boostooyinka wax lagu dirayo dunida oo mail ama qolo kale telegram wax loo dirayo waxaa la raacin jiray calaamad yar oo la socoto oo magaalada dalkaas magaceeda ku qoran yahay sumadeed ku qoran tahay kuwaas oo u dhigmay lacag yani booska maanta lacag joogto kale u dhigmaysay marka wuxuu ka dhex arkay fursad meeshaas in uu meeshan lacag ka dhex samayn karo oo waxa isweydiinaysaa sidee uu waraaqad yar wax ku dhagan lacag ugu samayn karo haddaba sida jirta markaas dawladaheed markaa dunida ka jiro dhan waxay isla gaareen waraaqadaha noocaas oo boostooyinka lagu diro inay noqdaan kuwa waraaqada qiimo leh inay noqdaan kuwaas oo dal inta ka soo qaaday dal kale xitaa lacag kaga goynaya tusaale ahaan oo kale waraaqad yar oo ka joogta oo boostada ku dhagan oo Spain ama Talyaaniga laga leeyahay markii uu soo qaado Mareykanka keentid waxa laga yaabaa hadii ka joogtay $5 meeshan in xagga uu kaga gato $7 $8 yani lacag $20 in la socoto Janis ayuu halka dhaxarkay isla buugiisa oo The Rise of Mr. Ponzi ayuu wuxuu leeyahay waxa horteeda ku soo dhacay canda bisal oo ma aanan baahnayn geedka inaan gilgilo wax ii diyaarsan dhabtay ku soo dhacay ay ahayd waan ku qasbanaa cambahaas macaanka badan inaan qaniino oo aan tuuga fiican ka qaato haddana Janiska ka faa'iideysan lahayn buu leeyahay in aadan bamaba ahaadeen Janiska meesha ka dhaxarkay ayaa ahaa mataqaanaa mid runtii hamigii waxaan ka guuxayo intaas oo meel darbi madaxa ku soo dhufanayay oo maray qarb xabsi u galiyay fursadda halkaan malaha ka dhaxar karay iska dhadhowday haddaba haddii Ponzi uu inta ku ekaan lahaa wax dhibo ma jireen sheekadiisa xitaa maanta halkaan intaan soo fariisto idinkagama sheekeeyeen qisada keentay Baaro Bashiir oo u gud bishaarana sheekadeedii magaceeda ma nabi u sameeyeen waayo wax marka uu sameeyay inta marka loo eego waxay ahayd wax legal ah jira oo ilaa maalinka maanta xitaa shaqeysa oo loo yaqaan arbitrage caadiyan waxa way suuqa saamiyada inta tagtid su'aal yar haddaan siiyo suuqa saamiyada magaalada Muqdisho insha Allah in saamiyo suuq weyn oo saamiyada adduunka caalamka leedahay ka soo qaad shirkad ku taala oo Google su'aalahan oo kale saamigeeda ku yaala ama shirkad Soomaaliyeed oo ku taala saamigeeda oo maanta la gaday $20 haddii uu ka joogo New York ama London boorsadeeda ama suuqeeda saamiyada uu ka joogo $20.5 yani 5 cent haddii dheer tahay $1 waa faa'iido yani xaggaan ka qaadaysa xagga lagu iibinaya waa wax ilaa hadda shaqeeyo dunida ka jira weligeedna jiray hadduu sidaa ku koobnaan lahaa waraaqada ku iibin ku koobnaan lahaa wax dhibo ma jiraan laakiin se sheekada halkan ay ka bilaaban doontaa haddaba shirkadda markuu aasaasay sanad iyo 2 sano kadib ayuu wuxuu aasaasay shirkadda loo yaqaan Securities Exchange Company taas oo leeyahay markaan maadaama uu sheekada istusay uu leeyahay saan lacag baan uga samayn karaa wixiina maadaama sentiyaalkooda yihiin aad ku qasban tahay kumanaan kun inaad u bedeshay si lacag uga samaysid ayuu wuxuu yahay dadka Talyaaniga ahaa oo la jooga magaalada iyo dadka reer Boston ee carriga Mareykanka ku noolaa ayuu oraah dad kale kala duwan gaarsiiyay uu leeyahay qofkii ii dhiibta lacag $100 3 bil gudihiis lacagtii oo laba jibaaraya waliba lacagtiina wax kale kuma sameynayee waraaqadahan postiska ku soo qaanay voucherskan ayaan ku soo gadaya sidaas ayaana ku soo geynaya faa'iidadana waa noo wada qaybinaya maadaama saan soo xusnay oo hal iyo laba qof bas faa'iido laga sameyn karna ay tahay kumanaan kun lacagan la isku diro saasna boostooyinka lagu gado laakiin sir ayaa meesha ku jirtay Mr. Charles Ponzi soo dadka ugu sheekaynayo uu leeyahay lacagtiina ayaan ku soo gadi doonaa Talyaaniga waxaan uga soo gadi doonaa vouchers oo waan ku iibin doonaa faa'iido idin celin doonaa maysan ahayn muddo yar gudaheed ayuu wuxuu ogaaday inuusan u baahnayn inuu safar dheer galo oo bilooyin iyo asbuucyo iyo maalmo badan uu sugo waraaqadaha ee uu samayn karo lacagtii uu Bashiir ka soo qaaday
oo yiri waxaan kugu maalgelinayaa inuu siin karo bishaaro oo markii hore bishiir keentay yani tusaale ahaan kale qofkii qof ii keena oo dhaha waa ku maalgelinayaa oo faa'iido iga sugaya qofka markuu muddo ila joogo qofku ii keeno ayaan lacag bishaan ka siinaya laakiin asagu ma oga qofka uu keenay bishaaro oo markan koowaad ii imaatay markaan dhaho bishii kooda lacagtaadi waa tan saan haddaad yeesho dad kale ii keentidna waxaan way sii soconaya ba asxaabtaada ku wargeli markii bishir ii keentay lacagta aydan u celinaya waa hebel ka qaad waa hebel sii dadkuna waxay u qabaan inuu ninkan lacag samaynayo oo vouchers waxaa la kala duwandadayo laakiin dadka dhexdoodii ayuu ka gadayaan qorahdaas waxay noqon doontaa mid keeni doonta barnaamijka loo yaqaanay Ponzi scheme ama nidaamka la isku dhaco ee Ponzi kaasoo markaa lagu magac darayo Mr. Charles Ponzi barnaamijkan uu shaqeynaya sanado aad u badan barnaamijka markuu aasaasay sanad iyo bar kadib wuxuu gaaray lacag u dhiganta 15 milyan oo dollar Mareykanka taasoo maanta u dhiganta xaadirkan hadda aan joogno ChatGPT markaan weydiiyo u sheegayaa 223 lacag ku dhow 223 milyan oo dollar lacag ku dhow ayuu sanad gudaheed ku qabtay taasoo dad kumanaan kun oo reer Boston ba u badnaadeen ee barnaamijkiisa markaas qayb ka ahaayeen ayagoo markaa mid walba u arkayay in nidaamkan ay ka qayb qaadanayaan uu yahay mid maalgelin sax ah caadi ah laakiin asagu wax kale ma isma dhibayn taliyaanin muusan aadayn suuqa saamiyada muusan tageen ee gurigiis ayuu boorsooyin ku yaaleen hebel wuxuu keenay qofkii u horreeyay ayuu siinayay qofka ka dambeeyay ayuu lacag siinayay sidaasna barnaamijka noocan oo kale wuxuu ku shaqayn karaa mar walba oo dad cusub oo maalgeliyaal oo lacag cusub keena ayuu sii jiri karaa laakiin ceebtiisa fadaxadiisa waxay bannaanka imaatay marka Boston Post oo jariidad markaas magaalada ka soo baxaysay Boston ay warkiisii bannaanka keentay oo ka hadleen oo yiraahdeen barnaamij noocan oo kale ayaa jira kaas oo markii koowaad dambi lagu helay xabsina sidaas ku galay waliba muddo gaaraysa 3 sano iyo bar waliba asoon ku sii jirin ayuu ka soo baxay kadib markuu dhiibay ilaa lacag 1 milyan oo dollar ku dhaweyd markaas oo lacag yar celiyay yani 15 milyan baa uu qaatay ilaa 1 milyan oo uu bixinaya طبعا iska daro dadka uu lacagta siinayo waa kuwii markaa maxkamadaha ku furay oo daba ordayay laakiin dadka badi waxaan ognahay inay markaas nacfi badan meesha ka sugayaan ogowna nidaamka noocaana dadka ugu horeeyo asaga dacweeyay oo ku qarxiyay oo warkiisii sirtiisa banaanka geenaya waa dadka ugu horeeyay ugu waaweynaa oo markii hore barnaamijka soo biiray barnaamijyada noocan oo kala ah oo Ponzi scheme kuwa la midka ana badanaa waxa lacagba ka sameeya dadka ugu horeeyo halka dadka dambe oo gadaal kaga soo biirana lacagta badan la dhaco oo hawada ka baxdo oo la khasaaro oo warkeedii banaanka imaado ay ku ayada ka imaata haddaba wuxuu soo jiitay xabsi kala duwan iyo dacwadiisa sii dheeraato sanadda 1934 ayaa meel marin been abuur sheegid hanti dhicis tuugaysi iyo xaalad kala duwan intii lagu qabtay oo lagu eedeeyay ayuu xabsiyo badan oo federaalka Mareykanka galay ka bacdina markii ugu dambeysay loo tarxiilay dalku asal ka soo jeeday ee Talyaaniga halkaas oo marka dambe sheekadiisii iyo baalkii dahabiga ah oo cayrinayay iyo riyada aad u quruxda badan oo ka raadinayay cariga Mareykanka ay halkaas noqotay mid biyaha ku dhacday haddaba waxaa la sheegaa inuu wax badan sii jirin Talyaanigu ka soo laabtay Brazil buu u dhaxeeyay wuxuu isku dayay shirkad yar oo duulimaadyo isku dayay baa la yiri laakiin markii dambe maalinta 1949 ayuu waxa la xusuustaa inuu isbitaal xaafadda jaban ku taalo xaafad iska daciif ku taala oo ku dhintay asagoo markaas ka tagay wax aan ka yarayn ama ka badnayn $20 oo markaas ba lagu aasaasay lagu agaasimay mataqaanaa duugtiisii markaas lagu hagaajiyay haddaba sheekadaas waxay ahayd Charles Ponzi oo u dhashay dalka Talyaaniga cariga Mareykanka tagay Canada soo maray dad badan oo saaxiibadiisii ehelkiisii reer Mareykan ah sidaas lacag uga qaaday waana magaca maanta taqaanaan oo Ponzi scheme markan maqashaan ama chief oo Chuck barnaamijka Soomaali u bixisay meeshu asalkiisa ka imaaday weeyaan haddaba jaalayaal waxaan filayaa marka magaalada joogtaan internetka wareegaysaan sheekooyin labada badan waad maqashaan wax aad u adeegsadeen dadka herbalka gado oo kale barnaamijyada sida cosmetics oo kale bangiyo aan loo jeedin iyo dadku dhahaya waxaan ku maalgelinaa dhul aan ku yaala qarrac qobood iyo meel aan lagu garanayn oo ku dhahaya lacag ayaan ka qaadaynaa 2 bil 3 bil gudaheedna lacagtaada waan kugu laba jibaareynaa kugu soo jibaareynaa haddaba jaale barnaamijkan loo yaqaano Ponzi scheme dunida dhan looga yaqaano ama Soomaalida ugu yeeraan chief oo Chuck yani iska siifso oo Chuck oo wax dhug oo cun haddaba ma aha kuwa xaqada ku salaysan waxay kugu imaan karaan sida ninkan oo kale waxay kugu imaan karaan ayagoo lagu leeyahay herbal ayagoo leeyahay cosmetics ayagoo lagu leeyahay bangi ayagoo lagu leeyahay waa bogcad ama goof ama dhul ku yaala qarrac qobood baadiyaheeda wax aadan ku muuqan arki karin dabcan noloshaada iyo ayatiinkaaga saameynaya waa mid lacageed oo marxanti kaaga dhumayso oo marna mid martaqaana khayaaligaaga iyo riyadaada dhumuxaaga hantiyeed maaliyadeed saameynaya waa dhanka kale waxa ku soo galay oo garanayn inuu xalaal iyo inuu xaraam yahay runta ka saari karin mawduuca noocan oo kale aad ay u badan yihiin dunida meelo kala duwan ay yaalaan
qaab kala duwan oo lacagaha loo kala dhaco oo weliba adigoo garanaya loo kala qaataday ka mid tahay maraan sida usii fogeyn ayay ahayd margeyga Soomaalida ay ereyga forex ama foreign exchange waxa loo yaqaano oo caanka ahaa aan hubnana dad badan oo Soomaaliyeed aqoon ha u lahaadaan ama ha u dhawaadaane ay mataqaanaa lacaga badan ku dhaweeyaan magaca ugu yar kulli waa Ponzi scheme marka haddaad maqasho Ponzi scheme iyo barnaamijyada la midka ah ogow meesha ka imaadeen magacooda had iyo goorna waa kuwa aan marnaba ka duwanayn kiyaan soo xusnay